musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga cadaaladda ee daryeelka cabdirashiid xasan mataan ayaa maanta iska casilay musharaxnimadii iyo jegadii uu ka hayay xisbiga mucaaradka ee Ucud kadib markii khilaaf baani soo kala dhexgalay gudoomiyaha xisbigaasi injineer Faysal Cali Waraabe isagoo ku sameeyay musharaxan iscasilaadiisa khilaaf uu sheegay in loo maara waayay uuna ka daalay xal u helidda khilaafka ka dhex taagan xisbigaasi isagoo sidoo kale hoosta ka xariiqay musharaxan iska casilay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka cabdirashiid xasan mataan inay ku kala aragti duwan yihiin sidii loo xalin lahaa khilaafkaasi musharaxa jagada madaxweynaha ee Jamaal Cali Xuseen taasina ay keentay buu yiri in iska casilo musharaxii jagada madaxweyne ku-xigeenka ee xisbigaasi cabdirashiid xasan mataan oo arintani ka hadlaya ayaa yiri sida tan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaad bariyaha ma maqlayseen in laga hadlayay khilaafku yimid xisbiga Ucud hase yeeshee wax rasmi ah iyo warar rasmi ah oo ka soo baxay aydaan helin taariikhda xisbiga Ucud iyo kii dib loogu soo nooleeyay ee Ucud waa mid aad ka dharagsantihiin khilaafka Ucudna ma aha mid cusub ee waa mid la dhashay markii uu soo baxay xisbigu oo ku soo baxay doorashadii 2012 oo ku soo baxay musharaxnimadayadii iyo taageeradii bulshada Soomaaliland ay nagu siisay khilaafkaasi waxa uu kali ku ahaa gudoomiyaha Faysal iyo murashax Jamaal Cali Xuseen waxaan waqti badan gelinay inaanu maarayno hase yeeshee dagaalo badan oo ku socday xisbiga Ucud waxa mar walba suurta gelinayay in si kala fogaadaan iyadoo taasna iyaga laftooda ay qayb ka ahaayeen markaan soo koobana xisbigu waxa maalin walba la jirayay xidid iyo xubin ka mid ah dabayaaqadii bishii ina dhaaftay Oktoobar waxa bilaabmay afduubkii xisbiga kulmiye oo laba waji ah wajigiisa hore waa ogtiin oo uu soo dhameystirmay wajiga labaadna waa mid loo adeegsanayo injineer Faysal Cali Waraabe burburinta xisbiga Ucud si aanu noqon mid tartan lagu gali karo marka guuxa iyo shirarka aad maqlayseen ee aan ka soo bixin haba yaraatay war sugan waxa uu habal in laga badbaadin karo xisbiga burbur iyadoo si sharci ah loo raadinayo iyadoo mid dhaqan lagu raadinayo labadaba waxa qormaysa taariikh injineer Faysal Cali Waraabe laba jeer hore ayuu tartamay oo uu ku guul daraystay taariikh fiican bay u noqon lahayd in sidii uu heshiiska ku galay ee lagu ansixiyay xisbigii Ucud uu daacad u noqdo kuna fuliyo hase yeeshee waxa uu ka doorbiday taariikh madow iyo khayaamo isagoo loo adeegsaday inuu si rasmi ah u xabaalo xisbiga Ucud oo noqonaya xisbigii labaad ee intii talada ay haysay xisbiga kulmiye la burburiyo ama la fuliyo burburintiisa waxaan tacab badan geliyay sidii xisbiga Ucud u noqon lahaa xisbiga badbaadada Soomaaliland waxaan se ka xumahay in xisbigii laftiisa aan ka badbaadin kari waayo shirqool uu qayb ka yahay gudoomiyaha Faysal isla markaana aanu isu aragti ka noqon weynay murashax Jamaal Cali Xuseen badbaadada xisbiga cadaaladda iyo daryeelka haddaba anigu qof ahaan waxaan ku qancay in aanan waqti intaa ka badan kastii lumin karin shacabkii ku qanacsanaa hogaaminteyda iyo taageerayaashiiba waxaan halkan si rasmi ah uga dhawaaqayaa inaan gebi ahaanba kala baxay musharaxnimadeedii xisbiga cadaaladda iyo daryeelka duuduubo khilaafka xisbiga Ucud ayaa ahaa mid muddooyinkii dambe huursanaa isagoo muddooyinkii dambe si weyn u soo shaabaxay khilaafka xisbiga Ucud khilaafkan xisbiga Ucud ayaa salka ku haya jagada musharaxiinta oo sida la sheegay gudoomiyaha xisbigaasi injineer Faysal Cali Waraabe uu rabo in isbedel lagu sameeyo arrintan ayaa markii ay soo shaabaxday keentay khilaaf baan oo ka dhex qarxa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee Ucud Idris Ismaaciil Cabdi Yaxya telefishinka caalamiga Somali News magaalada Hargeysa